munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afraad ee aasaaska kooxda Siska Moscow oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad kana dhisan degmada 26 Juun ayaa lagu qabtay hotel Baraar ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan sanad guurada afraad ee kooxda Siska Moscow ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, ciyaartooy, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday munaasabadan. ugu horeyn Ilyas Cabdiqaadir Gudcadde oo ah macalinka kooxda heerka saddexaad ee Siska Moscow oo xafladda ka hadlay waxa uu yiri: waxaan joognaa sanad guuradii afraad ee kooxda Moscow. kooxda Moscow waxay soo martay marxalado kala duwan. marxaladaha kala duwan alxamdulillah maanta ilaahay baa mahadlay waan ka soo gudubnay. maanta uma niman halkan inaan calaacalo ama aan ka sheego cidii aan garab qaban. maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay dhammaan dadka garab taaganba waxay kalsooni iyo magaranaysaa waxaan ka helayaa dhiirigelin. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan qof cid kasto qayb ka ahayd xafladda quruxda badan ee caawa joogno. waxa kaloo halkan aad uga mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo ugu horeeyo Axmed Taye Qaran. waxaan leeyahay dhalinyarta waxaad u haysaa garab iyo hiil weyn. waxaan ku leeyahay halka kaga sii wad dadaalka aad dhalinyarada ugu jirto. dhinaca kale hadaladii laga jeediyay munaasabadda sanad guurada afraad ee kooxda Siska Moscow ayaa u dhacday sida tan. aad iyo aad ayaan ugu farxad tahay inaan maanta maxay ku soo xafladii afraad ku soo gabagabeysano. aad iyo aad ayaan ugu farxad tahay dhammaantiin aad iyo aad ayaan ugu dhiirigeliseen. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dhalinyarada aan waalidka u nahay, qaar aan adeer u ahay iyo qaar aan kula waalid u ahayba, dhammaantood sida ay iskuul u xidhan yihiin ee ay aad iyo aad sida sharafta leh ay u wada socdaan ee 4 sano isku soo barbaariyeen. imikana maantana alxamdulillah rabbil caalamiin sida ay noo horjoodaan waan inuu ducaynaynaa in heerka iyo heerka sii sareeyaba ay isku sii tababaraan. ma sha Allah kuwa meel fiican ayay marayaan, qur'aan u qurux badan waa u wada yar oo fiican oo aad u dadaalaya. marka xigtana waxa aan isagana u mahadnaqayaa wiilka da'da yar leh Ilyas Cabdiqaadir. anagu waxaan nahay xaafadda weligeed ba lagu xaman jiray qalqaaliga, laakiin sanadadan dambe waxa naga soo baxda dhalinyarada aad u tayada badan baa ka soo baxda xaafadeeda. ma sha Allah waan ku faanaynaa, ilaahay hayna barakeeyaan leeyahay. waa dhalinyaro dadaalaysa laakiin waxaanay haysan cid garab gashaa in ay dhalinyartaas iyagoo oo aan horta meel la ku tiirsanayn aan meel la magaceeda ku ciyaarin ay haddana haddii ay tahay tartamo iyo haddii ay tahay xafladaha nimanka aynu joogno kaloo sidaa quruxda badan laba ay iyaga iyo waalidkoodii dib ay ugu noqdaan ay ku suura geliyaan markaste. insha Allah bismillaahi kariim nolosha aakhira iyo adduunyaba guul baan idin rajaynayaa. inaad dadaalka ka sii wadaan, inaad dadaalka laba laabtaan, inaad dhan walbo kubadu tahay ba maxaan ku hore wadaan maadaama isku xaafad iyo xaafad weyn aad magaceeda seetaan. ducadana waxaan leeyahay ilaahay hayna baarigo, ilaahay cimriga iyo caafimaadka ilaahay ha barakeeyo. dhammaan dhalinyarta qurux badan waalidka ku soo tabcana ilaahay tacabka ha u xasiliyaan leeyahay maadaama ay dhalinyarta qurux badan leh ay halka keeneen. ay boorka aanka caalamka ba dhamaantii laga caga dhigtaa tahay afku cayn kastuu yahay dugsiga culuntii 10 laga bilaabay awjkeeda cilad naga jiro ceeb hooyo nagu yiri adaa nagu cadaadso danta noocan anto diintii caqiidada sameeno carbinayo caadi dooga noo tusay ashadeena weedana cabitaanka hooyada cunto joojinaysay hooyada lootay ururiya culays cabsi lagu abuuray adoo urtay oo baxay adigoo ciyaar guday ceeshkeeda bulshada casarkay ku noqota si kastood garo ofriyo carab badan u leedahay madaxuna cadaan yahay ajibi way hooyo ajuus uma aragtay aan ugu yaraa iyo ciyaal badan noqota. hooyadeennu ina badaroon bay Maxamed Yaro meedaan garanay. xafladu waan qabnay laakiin wali heerka ma aan gaadhay maanta gaadhsantii. marka dadku maalinba meel buu taagay. maanta anagoo su'aal yar oo iska xidhan ama shaar yar oo jactada xidhan baan xafladda aanu qaban jirnay. markaas sharaab yar la keeni jiray, salool yarna xaafadaha waalidiinta noo soo sameeyay yar oo salaabiya yar oo saloola inana ciyaar la oran jiray waa isku malabla iyo waliba buskulka ama waalidka. marka waxa weeye maanta qurux baa taagantiin oo faantadii oo xidhan baad helaysaa. anaga waxa la sameyn jiray bariga sharaabka oo la qooshi jiray iyadoo qoosho ma quraanay nala ku shubi jiray markaas nala qaybin jiray markaas waliba laga gooyn jirtay.
waliba inaga gooy jirto qaar bay iyaga xalisa tagi jiray ama shubila sharaab bay xafladda ma ahayna mar caawan nasiib baad leedahay sida la idiin sheegay inaad ka faa'iidaysataan unbaa idiin taalla hal xaafad baad ka soo wada jeedaan hal qoys baad tihiin midnimadiina u ilaaliya tafaraaruqa iska ilaaliya balwadaha iska ilaaliya waxaad iska ilaalisaan wax kasta oo dib idiin dhigaya sida uu sheegay gudoomiyaha ama madaxweynaha kooxaha Moscow ha isku halaynina kubadda oo kaliya waxbarashadiina sii wata waxbarashadiina ku dadaala taasaad meel ku gaadhaysaan inkastoo ay tahay daadii waxbarashada lagu ilaalin jiray waxaanu ka cudur daaranaynaa oo aanu leenahay hogaankooda iyo waalidiintaba kubaddu way wanaagsan tahay in la ciyaaro laakiin in lagu ilaaliyo waxbarashadii oo aanay waxbarashadii ka jeesan maanta runtii markii ay la soo hadleen dhalinyarada Cisco Moscow ay ku dhaadeen caawa xafladayadii runtii way u cuntami weyday in aan ka maqnaado oo waxa weeyaan xafladda quruxda badan leh ee dhaqaalaha inta leeg ay ku bixiyeen in wasaaradii ay ka muuqan weydo sharaf bay tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxa qayb weyn oo ka qaatay xafladdan aan jecel iyaga laftigooda waalidiinta quruxda badan leh ee halkaas soo fadhiya ee dhalinyarada quruxda badan leh inoo keenay waxa aad wax lagu farxaa dhalinyaro inta leeg oo heer ka gaadhay oo balwadihii dhalinyarta aafayay ee dhalinyarteena maanta dhibaatada ugu daran ku haysa iyo aafadii labaad ee qabyaaladda labadiiba ilaahay ka nabadgeliyay ee maanta iyagoo isku mid ah oo isku diraysa garoon wada gelaya magacna wada sita sharaf bay u tahay magaalada gobolka iyo Soomaaliland dhamaanteedba sharaf bay noo tahay anuga ka xisbi wicid ahaan waxaan ballan qaadayaa in kastoon iska mucaarid nahay inaan hal diraysid ku caawiyo waa inta karaanka iyaga ah waan idila shaqaynaynaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliland gobol kasto ay joogaan xafladan ayaa ku soo idlaatay jawi qurux badan oo nabdoon Axmed Taye Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa.